Halkani waa The Darien Gap waa gacan isku xira wadamada Panama iyo Colombia. Barnaamijkan uu soo diyaariyay wariyaha BBC-du waxa uu uga hadlayaa dadka sida sharci darrada ah ku gala wadanka Mareykanka. Inaad qaadato qaraar ah inaad ku dhex lugayso keymaha Amazon adigoo ka soo bilaabaya socodkaaga Brazil ama Colombia ilaa aad ka gaadho Cuba ama Mexico adigoo sii dhex maraya Panama, Venezuela, Colombia iyo dalal kale oo ay Costa Rica ka mid tahay haddii loo baahdo ama Chile. Taasina waa go'aan adag. Muhaajiriintan u badan Haiti, Cuban iyo Afrikaan ka soo jeeda Nigeria, Cameroon iyo wadamo kale Soomaaliya iyo Ethiopia ay ka mid tahay. Sidoo kale waxaa ku jira Bengali iyo Hindi. Ilmahan waxaa ku nool masaska adduunka ugu dhaadheer. Waxaa ku jira yaxaasyo ka haray dinosauradii hore iyo xayawaanadii dunida ka dabar go'ay. Webiyaashan dheedheer ee ku dhex yaala keymaha Amazon ayay halistooda u bareerayaan muhaajiriintan nolol raadiska ee doonaya inay Mareykanka ku galaan sifaha sharci darrada ah. Haddaran ciidamada Cuba ama kuwa Mareykanku inay ku qabtaan adigoo xuduudka lug ku galaya, hase yeeshee marka aad marto The Darien Gap oo aad ka gudubto Colombia iyo Panama waa caadi. Hase yeeshee keymahan waxaa ku nool dadkii hore ee insaanka hore ee dhulka loogu yimid ama la dhihi jiray Calibaystenka. Haddii ay ayagoo qabiil isku dagaalaya ku helaan waa halis. Sidoo kale duurkan waxaa ka dhex qaraabta kuna nool dadka dhirta jara iyo gaangiska ama kooxaha drug cartels-ka loo yaqaano ee daroogada ka ganacsado ama maafiyada. Haddii iyaguna ay ku helaan waa halis. Xubnaha jirkaaga ay jarjarayaan wayna sii iibsanayaan. Intaas waxaa ka sii daran halista ugu weyn ay u bareerayaan waxaa ka mid ah in muhaajiriinta qaarkood ay ku jiraan caruur yaryar, hooyooyin uur leh iyo haween ama rag kale oo ku soo dhaawacmay dagaaladii iyo wadamadii nolosha adkeed ka jirtay ay ka yimaadeen. Waayo dadkan waxaa ku jiri kara Suuriyan ama Haitian ama Yemeniyiin iyo Soomaali oo kale. Wariyuhu mar ayuu weydiiyay sarkaal ka tirsan ciidamada wadanka Panama haddii aad qabataan dadkan ka horan. Wuxuu yiri dadka Colombia oo daris nala ah waxay ka fiirisaa baasaboorradooda, travel documentskooda iyo wadamada ay ka soo jeedaan muwaadin ahaan. Haddii wadamada qaarkood dalkooda xiriir fiican kala dhaxeeyo ama abaal hore uu ku leeyahay, way soo dhaweeyaan, hoteelo ay dejiyaan, hore ayay isku soo dhaafiyaan. Maxaa ku jaban annaga marka aan qabqabanayno? Hase yeeshee wadankan Panama wuxuu gacan saar la leeyahay Mareykanka. Ayaga waxaa u daran wixii wado ama laami ka gudbaya ama markab saaran ama diyaarad bilaa sharci ku fuulaya. Laakiin qofkii yiraahdo waxaan marayaa The Darien Gap oo keyntan 700 mitir ah ayaan ku dhex lugeynayaa, qofkii yiraahdo way fasaxayaan ayaga. Sidoo kalena waxay siinayaan access ay ka mid yihiin markii uu webi gaaro kale dooma alwaax ah iyo waxyaabo la mid ah. Haddii webigaas uu ku qarqoomana ciidamada badbaadada oo kale inay badbaadiyaan waa laga yaabaa. Hase yeeshee go'aanka adiga ayaa leh ayaa lagu leeyahay marka hore lagu sheegay. Okay. Waxyaabaha kale ee ku fududeynayaan ciidamada Colombianka iyo shaqaalaha ka shaqeeya ee magafayaasha ka ah xuduudka Panama iyo Colombia waxaa ka mid ah waxay ku siinayaan cirbadaha gargaarka degdega ah oo kale, baantaajooyin, waxyaabo sidaas oo kale ah. Haddaba ka waran waxaad ka tagtay Afrika oo aad ku haysatay wax kasta oo aan noloshaada halis geli karin, kaliya waxaad ka cararaysay shaqo la'aan iyo fursaddii nolosha taloomay ku soo marto. Ka waran haddii yaxaas ama shabeel intii uu ku dhashay jooga ama webigii uu ku dhashay jooga aad u tagto. Waxaa la weydiiyay Abwaan Sangub hadda ka hor waxaa la yiri ka waran tahriibka. Wuxuu yiri hadda ka hor xaan cunaa ayaa baxday yiri. Xaan cunaa sidee u socotay aan ka cunaa ka hor timid yiri. Waa sax. Waad baxday waxaad aaday Colombia ama Mexico. Waxaa ku qabsaday drug cartels, calooshaada la jeexay. Waxaa ku qabtay raggii El Chapo de Guzman ku qabtay. Calooshaada waxaa lagu shubay intaasoo kiilo oo darooga ah ama waa lagu qabtay. Waxaa lagu dhahay alaabtan noo qaad tuulo hebla noo gee, adigana waxaa rabtaa kuu sameynayna. Okay, booliiska lagugu mashimay waxaa la lahay ninkaas qabta. Ayaguna waxay intaas isdhaafinayeen shakiga ah in ayaga la raadsado. Sidaas ayaa ugu dhacda halis. Soomaali ahay iyo waa tahriibay iyo yaa ku yaqaana maxaa Colombia ku keenay, maxaa Costa Rica ku keenay, maxaa Panama ku keenay. Anyway, haddii aad doonayso inaad tahriibtid feel free fasaxa tahay, laakiin waxaan kugu waaninaynaa waxaan ka codsanaynaa walaalkeeyo nasiibkaaga iska sugo adduunyadan one day haddii aad jeceshahay inaad qurbo ku noolaad. Horta aniga maba ku jiro dadka ama rajeeya ama daneeya horta qurba, laakiin nasiibkaaga iska sugo. Maalin uun maalmaha ka mid ah way ku qoran tahay haddii Ilaahay uu ku qadaro. Laakiin naftaada iyo noloshaada iyo mustaqbalkaaga iyo hayaankaaga iyo inaad noloshaada bedesho
walaal risk ha gelinin. You will get your chance insha Allah.